zaman walba sida nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ka dambeeya ka sii shar badan maantadan waxyaalaha la noolahay waxa kamid ah waxay gaalada iyo mujtamacaadkooda ku magacaabeen maalintii jacaylka adduunka ajiib adduunku goormuu shiray oo isku waafaqay in la yiraahdo maanta waa maalintii jacaylka goormaan anaga shirka ka qayb galay haddaan muslimiin yaa sanooga qayb galay zumra yar iyo koox yar oo khariban baa meel fadhiisanaysa barnaamij bay soo samaysanayaan way soo tuurahayaan khalaas waa la aqbalayaa waxa la leeyahay waa maalintii caalamka maalintii hooyada caalamka maalintii caruurta caalamka maalintii kada caalamka maalintii kada caalamka war caalamka ka reeba u yaraan waxa badan waa maalinka nagi maxaa loo raacinayaa meel aadan joogin talana ku lahayn baa la doonayaa inaad qasab ku aqbasho laana marka idaacada ka maqasho televisionka ka maqasho yaani website-ka ku aragto YouTube-ka la raaciyo meel walba dhagta lagaga garaaco beentu markay kugu dhacdo marka dambe waad rumaysaa maanta waxaad arkaysaa adoo leh maanta waa maalintii jacaylka adduunka maanta waa maalintii jacaylka adduunka war ma haysaa maxaad ka ogtahay meel caalam intuu isugu yimid isku waafaqay ma jirto laakiin qolo waxaa jirta caalamka u soo shaxda oo habeenkii intay u soo fadhiisato wax u soo dejisa kadibna barnaamijkooda fushada kadibna inta wax magaradkoo dhan ay u sacabeeyaan oo durbaanka u garaacaan maalintii jacaylka adduunka maxaa la jeclaanayaa isweydiinay maalinta maxaa loo khasisay ma ilaahay rasuulkiisa in la jeclaado mise janniya aakhira in la jeclaado mise kitaab Allah iyo sunna nabi in la jeclaado mise waalidiin iyo dadkii ahlul khayrka iyo culimada in la jeclaado maya isweydiin adiga maalinta jacaylka adduunka war maxaa la jeclaanaya haddaad hooyada jeclaato kuma jirto meesha haddaad ilaahay jeclaatana meesha kuma jirto jacaylka loo socdaayo waa faaxishada iyo fuxshiga iyo wiilasha iyo dumarka rag iyo dumarka in la isku salido waa maalintii la isjeclaa la isku fakado kadibna kilaabiye inta la samaysto wixii la doono la sameeyo loo sahlo da'yarta khaasatan inay tuntaan oo qashinka sameeyaan qolyihii ka ganacsan jiray ee fanaaniinta iyo fanaanaadka loo yaqaan saaqitiin iyo saaqitaadka iyaguna barnaamijyo soo diyaarsadaan iclaamka la geliyo da'yarta la urursado lacag laga urursado akhlaaqdooda iyo diintoodina la gubo muhiimadu inta kama badna laakiin adiga waxaad isweydiisaa maxaad faa'iido billahi calayka kow faaxishiyo xumaan baa lagu ridaa markaad ugu yartahay waxa laga qayb geliyood ka qayb gashay xumaan baad ka qayb gashay allahna tabaaraka wa taala markuu adoomadiisa wanaagsan sifaadkooda tilmaamaya ibaadur rahmaan allah wuxuu yiri tabaaraka wa taala walladina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil lagwi marru kirama adoomada wanaagsan ee alla leeyahay tilmaamahoodu waxa weeye ama kamida ma tagaan goobaha xumaantu ka socoto laqwiga iyo wax xunee saaqidka markay maraanna ayagoo waxay ag marayaan wanaagsan oon ku wasakhoobin oo ina taabanin oo nadiif ah ayay gudbayaan طيب fuxshiga iyo xumaanta in maalin gooniya loo sameeyo magac macaan oo la jecel yahayna loo sameeyo oo la yiraahdo waa jacayl ilan jacaylka cid walba iska jecesha idii waxay jeclaataa aadamaha jacaylku waa isaga jira in uu doona jeclaa magac wanaagsanna waa loo sameystay masaladu waa shabakad iyo dabinkii shaytaan oo magacyada wanaagsan loo bixin jiray waxa u baahan tahay marka dad muslim tahay dhalinyaro muslimaat gabadh dhalinyaro muslimaat ibn aadamku waxa ugu fiican ama waxyaalaha ugu fiican oo in laga helo ama uu helo oo u baahan yahay waxa ugu weyn waxyaalaha ugu weyn kamid ama ugu fiican inay maskaxdiisu xor tahay oo madax bannaan yahay oo fikirkiisa iyo qaabku u fikirayo u madax bannaan yahay oo aqligiisa aan la qabsanin oo cid uusan ergisa u siinin laakiin billahi calaykum
dullinimada iyo addoonnimada ka darani maxay tahay in inta barnaamij la soo tabkhiyo la soo kariyo suuqa lagu keeno adiguna aad iibsatood iska qaadato adoon isweydiininba war maxaa ku jira war maxaa ma fiican yahay ma san yahay maya telefoonkan ku arkahay idaacada amaanaysay yani wax way website-yada maalmaha lagu qoray war hawaayahay adiga suuq marka waxa tahay qashin qub wax alla wixii qashin la soo tuuro lagu soo daadiyaa tahay laana aqligaagiiba waa hor la qaatay aqligaagiiba la tagay tafkiir ma jiro mushkilada ku haysatana waxa weeye naqsi iyo dhimanaan baa dareemaysaa gudahaaga kugu jirta maadaama aad dhimanaan iyo inaadan dhammaystirnayn dareemaysana waxaad rabtaa inaad iskabto yaad isku kabaysaa barnaamijka soo samaystay baad doonaysaa inaad isku kabto waa mid uu tilmaamayo caalimkii culumta ijtimaaca yani caanka ku ah ibn khaldun alayhi rahmatullahi uu leeyahay sida qaalibka ruuxa tabarta darani mar walba wuxuu daba dhigtaayo wax ka raadiyaa midka ka xoog badan baad marka daba yaacaysa وفعلا واجي إسلام كحوك بالنايو دولة أدونك هجامينهاي أدونك بدنكي وحو قبي إسلام كا حضارة سي هرمركي سال دبا السعودي ما أنتنا ما دام برنامج كاسي هوشي سقالة وضطه أدونك وحال الضوية عيا قال ذا يلقن كذي حتى هلا كلهم فمله حتى وروحي في إعلانها على قاطع حضارة وضع وحي في عنه وناك ابن آدم كما عقليسو soo saaro ama cilmigiisu soo saaro faa'iido leh cid gooni u leh ma jirto laakiin adiga awood ma u leedahay inaad wax kala sifayso inaad wax kala saarto in aad wixii qashinana iska tuurto wixii manaafacaad lana ka qaadato inta ma samayn kartaa intaadan qashin qub noqon wax walba lagu soo daadiyo dhalinyarada muslimka waxaan uga digayaa waxyaalaha noocaas oo kale in aan lagu saamoobin dayasho waxa inoogu filan rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam dayasho waxa inoogu filan saxaabadiisii kiramta ah Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman iyo Ali iyo Talha iyo Zubayr iyo akhyaarti dayasho waxa inoogu filan anbiyada iyo rusush dayasho waxa inoogu filan ragii taariikhda kulaha ee sijilliga taariikhda galay ee muslimiinta ee dhinac walba cilmiga iyo aqoonta iyo tiknoolajiyada horumarka dhinaca aqoonta iyo muxuu ahaay ee diinta dhinaca juhdiga iyo waxbixinta iyo muxuu ahaay jihaadka abtaal ummad la aynan jirin iyo taariikh baan leenahay maxaa ka maqan marka oo raadinaysa marka qashinka suuqyada ka urursanayso maalintaas la magacaabay طبعا magaca la sheegay hadana loo yaqaan nin baadari oo Talyaani oo ahaa baadari Talyaani oo Kristaan oo ahaa لكن تاريخ ahaan waxay yiraahdaan way ka horeysay munaasabada bishan 14keeda 13keeda 15keeda saddexda maalmood ama mid kamid ama laba kamid ama saddexdaba ama hawada socoto si xiriira ama mid kamid ah dhacde waa wax ka soo jeeda diimo kale ka soo jeeda way oo markii taariikhda dib loo akhriyo dadka Roomaanka iyo Yurubiyaanka saldhigooda hoggaankoodana in badan u ahaan jiray magaalada Rome ee Italy magaalada waxay u yaqaaneen magaalo muqaddas ah oo barakaysan cid dhistayna cid muqaddas oo la barakaysto oo la weyneeyay ahaayeen cid kastoo la yiraahdo waxbay taaratay iyaga waxbay u tartayna cid muqaddas ah oo iyadana la weyneeyaa laga dhigay Roomaanku intaynan Kristaanka noqonin ama nasaarada aynan qaadanin waxay ahaayeen dad wathaniyiin طبعا Rome iyo eriyadeedana dawlad boqortooyo ka jirtay oo de xukun ilaashato boqorro iyo lahayd niman madax ka ah waxay yiraahdeen magaalada markii la aasaasay laba nin baa aasaasay oo laba wiil oo dhalinyaro ah labada wiil iyo geed hoos jooga ayaa yey u timid ama ay dooreed mid tiraahdo طبعا wixii laga filayay inay cunto ahayd waxay yiraahdeen ma inaan cunin ee way nuujisay iyadii baashi yeyda ahayd baa la barakaystay oo leesios baa la dhihi jiray bay yiraahdaan iyadii way barakaysan tahay baa la yiri maadaama yey wax cuni jirtay
ilma ay u qalbi dabacdayna ilmihii bay jeclaatay ilaaha jacaylkay u bixiyeen roomaankii wathaniga ahaa marka ilaah sanad guurada maalintii waxay yidhaahdeen ay nuujisay baa 15 bishan ku aadanayd qaar 14 yidhaahdeen qaarna 13 yidhahdeen saddexdaa beri baa ilaaha jacaylka loo dabaaldegi jiray ilaahay jacaylkana waxaa loo bixiyey magacii la sheegay inay yeydaasi lahayd ee laysios la dhihi jiray qurun badan bay saa kusoo dabaaldegi jireen diin iyo ilaah la caabudo ilaaha jacaylku noqday wuxuuna ku salaysnaa dee baasha yeyda arrintii raad baa weli ka hadhay ilaa hadda kaararka jacaylka la ysu diraaye bahalkan carabiga dubbiga lagu yidhaahdo ama soomaaliya madax ku tida ay tiraahdo baa ku sawiran bahalkaa foosha xun ee nacabka iyo wax cuna iyo jacayl iyo qalbi dabeec laysu dabcay oo laysjecel yahay dee meeshay iska soo galeen asal ahaan waxay yidhahdeen halkaasay ka soo jeedaan si kastaba ha noqotee romaanku qurun bay ahaan jireen qurun bayna ciidda ilaaha jacaylka u dabaaldegi jireen inta aynan u wareegin kiristanka iyo nasaarada aanay u wareegin muddaday intaa ku jireen yar bay u qaateen bay yidhaahdeen kiristiyaanka dadkii qaatay baadariyadii qaatay mid kamid a waxaa la dhihi jiray valentine la dhihi jiray ama labaaba la dhihi jiray yidhahdeen laakiin ninkaa ugu magac dareen qaybtii dambe ee qarnigii 3aad markay kasoo wareegtay dhalashadii ciise calayhi salaam si iyagu ku qiyaaseen 269 ilaa 270 14 bisha february baa la dilay bay yidhahdaan sababta loo dilay maxay ahayd mawsuucadan ama daa'iratul-macaarifkan catholic ay leeyihiin sheekooyin wax badan oo sal oo la raacana aan lahayn laakiin de hawaska iyo beenta ay qori jireena oo iska qoray wana ama nin baa isaga riyooday ama nin baa saa iska yiri lahayd waxay ku qoreen laba sheeko baa ugu muhiimsan waxay qoreen mar waxay qoreen nin boqoraa jiray oo wathanigii ahaa saldhigiisuna Roma ahaa Claudius baa la dhihi jiray ninkan oo Valentine la dhihi jiray buu maqlay inuu diinta qabsaday buu la sheekaystay uu yeelay waa la sheekaystay nin fiican buu la noqday inuu kiristaanka ka laabto oo diintiisii wathaneed ku laabto oo geliyu isku dayay kana waa diiday isna wuxuu isku dayay inuu boqorku kiristaanka qaato markii la ismari waayey buu amar ku bixiyey in la dilo maalinkan laga soo bilaabo shahiid bay u bixiyeen oo diintiisii buu naftiisa u huray oo kiristaanku shuhaadadoodii magaca shahiidka ah bay waxay u isticmaalaan qadiis bay u isticmaali jireen oo kale qasiis buu ahaa markii saa loo dilina qadiis buu noqday bimacnaa shahiida wuxuu u dhintay diintii buu u dhintay sheekadaas dee jacayl waxba xiriir lama laha waxay isku dayeen sheekada qaarkeed inay meel ka soo geliyaan markay sheekadaa sheegeen bay qisaska qaarkood ka soo geliyeen waa la xiray intii aan la dilin xabsiga waxay isku barteen gabadh xiran oo indhool ah oo u dhalay ninka xabsiga mas-uulka ka ah gabadhii wuu duceeyey wax ku akriyay oo way caafimaaday oo indhihii baa furmay maalinkii la daldalayay isaga la dilayay 14 bishii february ahayd buu warqad yar u qoray oo leeyahay waan ku jeclahay waxay kaaga timid maye Valentine oo aad daacad kuugu ah halkaasaa kaarku kasoo bilowday bay leeyihiin iyo maalinta 14 kiristanku inay isku wareejiyaan dabcan markay kiristan dadkii noqdeen caadadiina laga fuqi waayeyba shaatigii wathaniyadda in laga saaro shaati diin kiristan loo huwiyo baa la isku dayay qole waxay dhahaan sidaas ma ahayne ninkan Claudius ciidankiisii baa dagaaladii ciidankii wax isqoro badan baa la waayay markuu baaritaan sameeyey waxaa usoo baxday inuu guurku qayb ka yahay waxaa diidaya oo raggii markay xaas yeeshaan in ilmihii iyo carruurta inay ka tagaan oo meel cidla kaga tagaan oo ka dhintaan aanay rabin markaasuu wuxuu soo rogay wareegto ah in guurka laga mamnuucay raggii dhalinyaradii ninkan baadariga ah hoos isaga guurin jiray oo kaniisadda si hoose ugu meherin jiray kadib baa la ogaaday arrintii baa loo dilay maadaama dadka israba dawladda uu ka qarin jiray oo isu meherin jiray halkaana jacayl bay kasoo geliyeen kaarkana sheekada laba sheekoo kala duwan baa marka la isku lamaaneeyayo kaar buu qoray kaararkan la qaybinayaa laga dhigo
jacayl bay ahayd mukhlis baan ku ahay iyo waxbuu hoos isaga meherin jiray. si kale haddii loo dhaho waxaan dhihi karaa khudbasiradii iyo meeraxad buu hoosta ka samayn jiray, khudbasiru samayn jiray. waa sheekada hadday jirto. waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo kaararka iyo waxyaabahan midabkan guduudka iyo dhiiggani xaggey bay ka yimaadeen in lagu lamaaneeyo. iyadoo kiristaanka kama soo jeedo, laakiin wathaniyadii ka horreysay markay sanad gurada dhigayaan astaantooda guduudkaa ka mid ahayd. ay baa la qali jiray iyo neef adhi ah. laba dhalinyaro oo si fiican murqahooda jirkooda dhisan yihiin oo jiim iyo ad wax u soo bartay baa dhiiggaa lagu daadin jiray, weella waa lagu shubi jiray. baalahan saynta eed wax lagu tirtiro oo kaleeto baa lagu dhex ridi jiray. dadkuna waddada hareeraheeda ay safan jireen, sidaasay ugu sayri jireen. ruuxay ku saydhaan inuu barakaysan yahay baa la rumaysnaan jiray. haweenka dhali waayey iyo gabdhaha yaryar baa jidka isu dhigi jiray. islaantay ku dhacda inay dhali, inay nasiib wanaagsan iyo gul wanaagsan heli, waxsaasay rumaysnaan jireen. guduudka iyo dhiigganina halkaasuu asal ahaan ka socdaa. markay kirista noqdeen roomaankii, ciiddiina dadku yaqiinayna ay bedeli waayeen, bay shaati inay u xiraan, inay shaati u xiraan diimeed oo dhalinyaradii diin kiristan inay ku cibaadaysanayaan uga dhigaan, bay ninkan oo arrintaa loo dilay oo waa hore la aasay bay soo noolayeen sheekadiisayo valentines day baa loo bixiyey marka, si ti kristana looga dhigo wathaniyadii looga saaro. muddo markay joogtay ilaa hadda qarnigii 19aad bartamihiisii 1969 toddobaatamiyadii laga soo gaaro, xilliyada laga soo gaaro aad bay uga fara baxday. sanad guurada zinada la xusay noqotay. sanad guurada zinada abriil kowdeeda beentaa loo sameeyey. tanna jacayl maadaama loo sameeyey zinadii baa xarka goosatay. qolihii kaniisadu intay isu yimaadeen katholigii waxay dhaheen war waxaanay diinteena ceeb ku tahay, aynu ka saarna khadka diimaha, ciidaha diinta aan ka saarno. goon waxay ku gaadheen inay ka saareen oo ciid diinid aanay ahayn. waxay uga saareen dhaqan xumada iyo akhlaaq xumada iyo magac xumada diintoodii iyagu bedeleen ee kiristanka ay usoo jiidaysaan dhibtay. adigoo muslim intee bay kuusoo jiidi marka? wax la yaab leh. horta wuxuu wax sidaasa weeye. laba rabad baan rabaa inaan gaadho marka, saddexdaba inaan natiijada idin gaadhsiiyaan rabaa. kow, waxaani asalkiisu diin wathani oo roomaanku lahaa buu kasoo jeeday. markii labaadna wuxuu kasoo jeeday oo shaatiga u xidhay oo diin ciid ka dhigtay diin christian buu kasoo jeeday. waxaani haddaba waa ciid diimo kale kasoo jeeda. taariikhaan inaad saa ogaataan daayarta muslimka. mid labaad, aakhirkii waxay ku dambeysay diimihii kiristankaa ee la bedelay ee baadariyadu ka shaqaysteen baa magac xumadeedii iyo akhlaaq xumadeedii intay u adkaysan waayeen diintoodii uga baqeen bay iska saareen oo iska caydhiyeen oo iska saareen. iyagii samaystay baa akhlaaq xumo uga cararay. waa mid saddexaade, sheekadan waxaan lagu saleeyey haddii la dhihi jiray casri cilmi iyo caqli wax lagu fiiriyaa la joogaa, wax cilmina ahna ma aha, wax caqli geli karana maaha. yay baa nuujisay, laba caruura ilmo nuujisay, markaasay baraka ka heleen. waar dadkii dee qur-aanka iyo sunnadu caqligu ma keenaya dhihi jiray, tan xaggee caqli ka keenay? caalamkana waxaan ka iibinaya, tan maxaa caqli xaggaa ka keenay? yay baa jeclaatay ilmood, way jeclaatay. caanay nuujisay, way nuujisay. hadday nuujisay in la ciid laga dhigo, ilaah jacayl laga dhigo, caqligee keenay? caqli ma jira meeshan. caqli jacayl baa la sawirayaa, wax yar baa la sameynayaa oo boombalaa, wax baalalaa laga dhigayaa. caqligee, cilmigee, eber waay. baalkii dubbigiiyo madax ku tidii wax walba cuni jirtoo barafka intay gasha xataa wax ka soo bixi jirtay, dad iyo dunyaa waxba aan beriinaynin, iyo jacayl qalbi jircisan baa kaar la iskula lamaaneynaya. caqligee, waxaan cilmina maaha, caqlina maaha, akhlaaq iyo diinna maaha. saxan wax diimo kale kasoo jeeda, iyagiina akhlaaq xumo u carreed, caqli ahaana sakhaafo iyo khuraafada qaldana. daayartiiyo dadka muslimiintu waxay wax u moodaan ma saxna.